بسم الله الرحمن الرحيم waxaan soo koobaynaa casharkii aan soo qaadanay waa cabaar socday oo ka hadlaya maareynta fasalka ee macalinka waxaan sheegnay muhiimadda ay u leedahay macalinka fasalka inuu maareeyo cashar wuxuu gudbi karaa oo kaliya marka fasalka la maareeyo ma idin xasuusiyaa tobankii qodob ee aan dhahnay macalinka waxay u tahay laga maarmaan inuu aad u tixgeliyo oona keeni karta in maareynta fasalku ay burburto qodobka ugu horeeya waxaan dhahnay macalinka waxa laga rabaa koowaad waa in macalinku uu maadadiisa si fiican u yaqaana ama waa inuu casharkiisa si fiican u diyaariyaa suurooda macalin maadadiisa aad u yaqaana laakiin casharkiisa u diyaarsanayn adu dareen maalin casharkiisa ku diyaarsanayn oo ardaduna ay isdhuganayaan halkaas waxa ka bilaabmaya booq waxa ku roon marka si casharkaaguna u fulo ujeedada lahayd u gaarto cashar diyaarsan waxyaalaha waxa kamida macalinka qodobka labaad macalinka oo si fidil rabay dariiqadii rabay u gaarsiinin casharka qofka sida loo gaarsiinay waa hab fiican qof kasta wuxuu jecel yahay si wanaagsan wax in lagu sheego marka waxaan u baahanahay inaad soo gaarsiiso casharka dariiqada wanaagsan ee munaasabka u ardada hadaa arday weyn la hadlayso hadaa mid yar la hadlayso hadaa mid dhexe la hadlayso mid walba wuxuu leeyahay hab gaar oo lagu gaarsiiyo waxyaalaha waxa kamida dhibka keeni kara codka macalinka oo hooseeya ama aan waadix ahayn oo cadayn hadaa adiga kaliya codkaaga aan la maqlayn ardada gadaal fadhiyaysan maqlayn hadee waxaa bilaabmaya sheeko adiguna yaa la socotaa xataa kuwa hore waxay wax ka baran karin kuwa dambe waxaa muhiima codkaagu inuu yahay mid waadixa fasiix ah la fahmi karo inuu macalinku taas waa qodobada kale ee waxaa ka mid ah la dhaqanka ardayga haddaad kula dhaqanto si aan mucaamilad fiican lahayn hadda asna waa kuugu jawaabaya waxaan mar aan meel ka akhriyey waagii koonfur afrika ay ka jirtay midabta koorka ayaa nin cadaan ah waxaa u shaqeynaya nin madow muddo 15 sano u shaqeyn jiray maalin dambe u yeero wuxuu dhageyso maanta wixii ka dambeeya wanaag baa kula dhaqmiya xumaan waa dhammaatay intuu ama qaaday ma waxa intuu ama kaagay oo yaabay wuxuu yiri ma hadaan keeno cunto aan bislayn shaah aan wanaagsanayn maraq aan fiicnayn keeg ama doorsho wuxuu yiri waa dhamaatay waxa soo wanaag baa hadda kadib ku dhaqmaya isaguna wuxuu yiri mid iga qabo mid ka ballan qaadaya maraq dambe aan luufkaaga tufi maayo markasta oo xumeeyaba maraqu ugu soo ridi jirasna hadaan wax barashada aan xumeeyno ardada maraqa wax barashada asagana waa lagu tufiyaa marka meeshaas wax kama socon doonaan waa qodobka kale waxa weeye shanaad ardayga oo aan laga qayb gelin maadada macallin kaliis iska hadlo sida raadiye arday ka qayb gali dooda wax ka sii su'aalaha weydii qaar ay ka jawaabaan inta aad casharku socdo wax dhisayso hubi waxa aad dhistay inay sax yihiin inta aad binaa wado hubi qiimeeya markasta casharka haddaad ku wado ardaduna waa kula soconayaan waxyaalaha wax looga qayb geliyo waxaa ka mid ah xataa mararka qaarkood xiise geli ardayga oo waxaa ku xiise gelaysaa qiso yaroo muhiima arrin dhacdo oo jirta oo laga faa'iidaysanayo casharka ugu dar waxaa dhib keenaya lixaad ardada oo la caburiyo ha dhaqaaqin xaggee ujeeda adiga fariiso saa u fariiso qof yeeli karaa ma jiro ilmuhu markay yihiin kuma sii jirto annaga dadkeena waaweyn meel iska fadhiya ma yeeli karno aamusnow qofna ma rabo ardada marka in la dhimriyoon caburinta laga badin haddii caburinta laga badiyo waa dilaacaya hunguri wax weyn la geliyaa waa dilaaca waxaan u baahanaa qodobka toddobaad hal usluub ha isticmaalin haddii hal usluub isticmaalto hal hab maalin kasta ku wado cuntada ugu jeceshahay ka soo qaata maalin kasta haddaa cunta waa nacaysa shay in barnaamijka loo kala badbedelo jeceliy habka u kala badbedel casharka qaabka u dhigayso bedel qodobka sideedaad dusha ka saarin wax aysan awoodin culaab aysan ka bixi karin adoo ciqaab uga jeeda ama adoo waxbarasho uga jeedaba wax aysan tabar u lahayn
haddaad tiraa berri waxaa idinka rabaa inaad soo xafidaan 50 xadiis berri waxaa idinka rabaa qof kasta inuu yaqaano 20 gabay ma ka bixi karo bidaan caawa dhan waa rafaadaya hadhowna waxaas hadduu xataa dareeriyo berri kadib wax ma yaqaano maanta waxaa idinka rabaa intaad wax soo qora tartiibi wax aysan kari karin haddaa rabto in lagu adeeco dadka waxaad fartaa waxa ay kari karaan إذا أردت أن تطاع فأمر بما يستطاع معناه هذا أدوات قال بين آدم حاد كاسبه كاري كرم وحكيني كرا معلن أنا سجالات نمبر سجال معلن أنا شغلي سجالين هذا شغال جعلين محاقة بكرتها فصل كاس وحكى صعدة وحكى المجال وأنا شغلي إذا جعلها ده جعلها بحكى لي أرضي إذا جعلها وحن دقيقة وجعلها مركان 10 كبحي وكل راح سنة يا هديك له إقطور حلو وقدع maartay tagoog muruq kala bax libnaha wahayn inaan banaanka uga tago taas marka uu qof shaqadiisa jecel weey qodobka tobanaad oo dhabka keeni kara waxa weey in qof aad tahay nervous ah kacsan markasta arday baa wax dhahay waa ku qaylinaysa mid kale maanto dhan jugti dhacdaba hadaad ka jawaabto adigoo kaligaaba waxa la yiraahdaa qofka beenaalaha hadaad been u sheegto kan ballanta ka baxay aad ballanta uga baxdo midka ku caayayso adu ma qashay baa sameeyay wax kasto dabeecada xuna aday ku kulmayaan nin walbaana hal jeer uu sameeyay marka qof yaani noqon shay inta la gargaraacay isna markasta qayliye baabuurtu waxay leeyihiin jug dhoorayaal macallinkana waxa laga rabaa inuu yeesho jug dhoore oo uu sabro tobankaas qodob waxaan ku gaabinay waxyaalaha macallinka qaybta laga rabo tobanka waxaan nidhi maadadaada si fiican u aqoon qaab gaarsiinteeda wanaaji codkaaga waadix iyo kor loo qaad wanaag ardada macaamilo kula dhaqan 10 ka qayb gali ardada ha abuurin ardada اسلوب هل hab haraacin ha ku kalifin wax aysan awoodi karin shaqadaada jeclow nervouska isdaji dar aan la ku dag ardayga maxaa keeni kara dhinaca ardada ilaa waxay imaan kartaa xagga macalinka xagga ardayga xagga manhajka xagga xiisada hatta xagga fasalka ee dhismihiisa isu yahay inta way qayb qaataan hadda anaga labaan xoog saarayna macalinka iyo ardayga arday maxaa keeni kara inuu keeno arday darsiisa aan ku fiicnayn fasalka waa rabshaynaya هذا أنا حلسه ماشى لقى هي حلي أرض نبكى وحول ربائنه مال شبنا نكون بوحي وحنا نكون هبونين وأرض أفصل كيسكو في عينين أرض مشكلة قويس هي ستو لا حل مشكلة قويس نبعتها هي استوى رئيسه أرض قال هو باهيين قال وحال قال حافظوها بكجرة ومربي أبابيات هاي ما يهد معلم كلية لا حل مشكلة ده هجرة mid waxa jira afaraad inuu ismoojiyo rabo in la arka la rabo in xoog weyna ama jacayl dadku inay soo jeediyo kaasoo kale si gaar ah waxa loo xiis gaar u waani dadka hortooda wax loogu sheego xuma tarta baraka qaarkood ama waalidkiis ama si waxa xal mushkilada haysata ka xal qodobka kale waxa iman kara maalinta aad cusub tahay waa lagu baaraya maalinta aad cusub tahay waa lagu hubinayaa ما معلنك ما جربا مسوا ويد ما أقف أذق با مارت مسوا جلسين أنه أذقنا مرة من بربورية الجلاء وحبتها لنا مرة من لحات أمورته لحات كذيك هاي ما كان سبب اللي قلت لك قالينه إسكت عضاء وحيالا قف ننجر ما نصيحون وهالله تصالح سوق إنه حكم إذا جلاس ما هاي لك وكبد مد أرض بقى عنته جامعة وعلى معلنا أرض بنت كده هذا أنت كده 10 waa baabaya waxaan ku iri waa fiicantay ma aayad quraan baa rabtay ha macna aayad quraan waa iga halaaba warka marka qodobadaas waa muhiimada fasalka macalinka iskale maamulka iyo arribihiisa shay kale weey laakiin fasalkaas adaa ka macalina adaa ka ahmaartay maareeya ka ah ardadaas wixii la rabay inaad gaarsiiso sidii fiicilada u gaarsiiso ayna ku qanacaan way 10keenu intaas waxay ahayd dul markii 10kii almaanta soo dhiganay inaad fahamtay baan u maleynaya ma sha Allah ma santiin assalamu alaykum